maalmaha kamida waxa la yiri nin ayaa meesha soo maray faras uu watay uu iskibrina dadka dhan hoos u fiirina hatta kor markuu la hadlaayo inuu fiiriyo hatta uma quuro wuxuu soo maray marka Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu iyo rakalo meel fadhiyo markaas hadaal ay isdhaafsay ninka meesha Abdullah ibn Umar ardiis kamid ahay wuxuu ku yiri ma taqaan aniga markaas uu yiri ha waa ku aqaanay adiga soo ma ha waa ku aqaanay si fiican aan ku aqaanayo بدايتك نطفة مدرة أذيك دم وحوير أذي صومان هواك وقانا وحلقا أبوري أبور تظهر وحلقا أبوري من حنا لقا أبوري إن أكوشة سمرت قفاتي من يلقا أبورونا بالله وقايا نطفة مدرة نهايتك جيفة قدرة ماشي قدام بيسنة بختي أراياتها قفك مركو دنتو هدي لو ما لميشان لديك محاد عاي وبررا وبقى وأرى marka maxaa la sameeyay qabriga la gelina qabriga wax loo gelina annaga naftana ka badbaadsanayno intuu uri lahaay oo jiran oo keenay lahaay soo ninkan iskibrinaya bilawgiisa hormani xuna laga abuuray dhamaadkiisana maxaa waaye baqtigaas uraaya oo qabriga la gelinaya wa anta bayna dalika wuxuu tahmilu al-adra inta u dhaxaysane noloshada inta u dhaxaysane qashina calooshaada ku jiro maalin walba kama deeqtoon inaan ku shaadi hal mar laba mar saddex mar maqsuula aadaysa maxaa dhaca qashinka calooshaada ku jiraata inay soo bixisid wax uray calooshaada ku jiraata inay soo bixisid maxaa ka kibraysaa marka qofkaas aata idan saddexdaas dadka halaagto waxa opposite keeda ee saddex badbaadiso oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay saddex dadka halaagto ku waxa waaye shahiixnimada inaan iska ilaalina u baahanahay bakhiilnimada inaan iska ilaalino tan labaad inaan nafteena hawadeeda raacsiino tan saddexaad inaan isla weynaana ama kibir uu soo galo saddexdaas ibn aadanka way halaag saddexdaas kaliya ma ahan way badan yihiin laakiin nabi sallallahu alayhi wasallam saddexdaas hal xadiis uu ku sheegay sidii mubashiriinta bil janna 10 kaliya ma ahan way ka badan yihiin laakiin 10 kaas hal xadiis lagu sheegay qaar kale meel kale lagu sheegay waa jira waxyaalaha oo arshiga ilaahay lagu harsado 7 waa ka badan yihiin laakiin nabiga hal xadiis uu 7 ku sheegay soo 7 yudilluhum allah laakiin waa jira waxyaalaha kale daa sameeyay arshiga lagu harina arshiga ilaahay ku isgareeyay إذن سدح ذاتك هلاك تواي محابة بادي مركا ما دام وحنا هلاقي نور الشيء رسولك إلهي ومحانا بتبادينا فأما المنجيات مركا وحيالا ذاتك بتبادينا يوحوا يروحوا العدل في الرضا والغضب إنا عدالة سميست مركات حناك سنتهيد إيوه مركات دقنتهيد مركات رالتهيد لبضا وحلو باهنا عدالة سميست إنا عادل أهاتي عرورت هذا مركا لهدليس إنا عدالة أسميسي ومدى مركا لهدليس إنا عدالة أسميسي قف كان شلي كدلمي يقف كان درات كدلمي أما كان صاحبتهين أما كان قرابتهين أما كان إن عذيرك إن إيسان أكتر إيسان أهانينا لباهية عدالة مركا وحاواي إنه قفك عادل أحاضو مركا حناك سنتهيد إيوه مركا دقنتهيد إنا هاتذا لباهية taas waxa aad u soo galay oo culimadu waxay arintaas aad u soo galayso waxa dadka xukaamta waa ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa idha qultum fa'dilu hatta hadalka marka qof la hadlaysid cadaalad samee waxa laga yaabaa santaan qof inuu ku yimaado laba qof ay gar ku keentaan laga yaabaa ay ku dhahaan nakala gar bixi tayib qofkan waa yimid waa dhageysatay qofkan waa yimid waa dhageysantan waxa laga qof marka dhageysanaysa qofkan waa taqaan saaxiibka qofkan ma taqaan qofka saaxiibka markuu dhageysan waxa leena tiraha dhagtaa u raaricisid ibtisaama dhoola cadeyn aad tustid in attention siinaysid qofkii kale oo aadan aqoonin ama isdagaas markuu hadlaayana okay waa hadalkiisa ma uu ku galooyaba taasoo kale marka dulmi hadaa ogtayna naftaada control karin ha dhaxgelin beenta dhaxdooda ha gelin cadliga marka waxa loo baahan yahay hatta marka hadaysid ina cadaalad sameeysid hatta qusul hiilo galaya Allah qofka markii oo laba qof markii wada sheekeysanay qofna hada uu qusish qofna uu qusli weys isku wax sheegaan dulmiya meesha soo galaysa hatta caruurtaada marka sameeynaysid ha kala jeclaanin ha ku sinaadan waxa laga yaabaa sometimes gabadha ilmaheeda inay kala jeceshahay ama ninkeeda inuu caruur kala hor u lahaay waxay ku qasbaysaa marka waxay leedahay okay cunugeyga hebel si dulmi waay ninki inuu yeelo ma ahan asigi inuu sameeyo ma ahan gabadha inay ku qasabtana ma ahan wiilkii dhulka sebel ku qor ama cunugeyga dhulka sebel ku qor ama aniga dhulka sebel igu qor waxa intaas loo sameeyay waxa ilmahaas kale inay dhaxalka soo qeyb galin ama ilmaha meeshan jooga la kala jeceliya aaba qaarkood ilmihiisu kala jeceliya wuxuu sameeyay ilmihiisa qaar wax u qorad goonisiina
ودردارما النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقت جيسا نين صحابي ويمد يا رسول الله وحان ربا ويل كي هبل هو يديسا وحي وتر دول كقر دولكي مركان كقرين وحي وتري مربي النبي محمد مرقاتها كان نقضه وحي وتر عنق دولكاس كسو قر مركو كسو قري وحي ترمي النبي سو مرقاتي جيل هدو هداد انسان لو قبسنه نبي مركي لو كان وحو كو سؤال ويدي عرورتادا دن ما كسميسا دولكاس انا سيسيد markaasuu yiri maya idan wuxuu yiri marqaati kala raadso aan dhulmi marqaati kama noqonay wax dhulmi marqaati kama noqonay idan waxa loo baahan qofkii inuu caadil ahaado markuu xanaagsan yahay iyo markuu degan yahay marka dadka jeceshay iyo marka nacban taayba ilaahi aydan uu soo dejiyaa ayuha alladina aamanu kunu qawamina lillahi shuhadaa lil qist ayda ilaahi subhanahu shuhadaa bil qist ayda ilaahi markuu soo dejiyay saxaabada dhan iyo annaga dhan ay nagu socotaa jaamacadda waa maqashin Harvard liiraaho oo ku taal Mareykan ku taal waa jaamacadaha ama jaamacadda ugu sarreysa adduunka oo loo qaanuunka laga barto waa jaamacaddan kelmadan waxay ka dhigatay shicaari ku dhigatay darbi ku dhagsatay waxay tiri wax kasta waa raadin kutub kasta qawaaniinka hadlayso diimanka dhan waa soo raadin aayadan aayad la mid ah cadaalad cadeynayso maanan arkin sida darteed aayada ugu fiican oo cadaalad ka hadlayso aayadan waa in darbiga ku dhagsan shicaari ka dhigtay diinteena marka diin al-cadaala waxa loo baahan marka adiga loo baahan yahay marka ina ku amal fashtan ko waa dadka badbaadinayso ku badbaadayso adduunyo waxa waay ina caadil noqotid caruurtaada caadil u noqo asxaabtaada caadil u noqo faamilkaaga caadil u noqo ummadan dhan caadil u noqo gaalkooda iyo muslinkooda hadii ku yimaadaan cadaalo u sameey Ali ibn Abi Talib waqtigiisa nin yahuudiya wuxuu ka qaatay dirciga waa kan markii seefta la isaga celiyo ayuu ka qaatay Ali oo meesha maray wuxuu arkay ninkan yahuudigu dircigiisa wada Ali dircigiisa wuu yaqaan wuu ka qabsaday wuxuu dircigan ana iskale ninka yahuudi wuxuu yiri aniga iskale war ana iskale isi Ali ibn Abi Talib mataqaana markaas waa amiirul mu'miniin هذا حالة ذاتك قاركود إني مقالان يوروب مريكان عدالة على ما أردتها مدحوينها حتى لدعوين كلا وزير كلا دعوين كلا بوليس كلا دعوين كلا صح وطالع عداله لكن عدالة أصل كدينتي أنا لقاته ولي مدي عن أدون كان كمدي عن هذا أنا كمدي إلى هذا مدحوين محكمة لقي مدى عضو إن حكم كلا قاضو لأن حصانه هيسأل مدحوين ولو مدوان كلا دينتي أنا وحاس مجرته علي بن أبي طالب لسوفي سنة محكمة أسو أمير المؤمنين يهودي وحور محكمة دان تجينا شريح لو يمي شريح القاضي شريح وقاضي واي وحمد حوينيس علي بن أبي طالب وحين محارتهن وحين درعي كان اسكو هيسنا علي بن أبي طالب هذا دعوة ويتهضل الله وحوير درعي كان يا شريح أنا اسكله وحانا اللي قاتوير هبينكي حرب السفين دقالكي دعي أي إيجا صور دعضي مركان صبح يكون نقدين واواي درعي كان أنا اسكله سنفتي ذو وقانا يهودي قال لي هذا مركز وحوير أنا جا إسكاله علي الوصون نقضي وحالي علي ومرقاتي ما هي ستا مركز ويرها عنو جيجا إيو وحالي ما علي قاضي وحوكير مقال وحوير والله يا علي وحان أوجهي إن أرنشي جيسد وأوجه لأن علي بن أبي طالب أسوه مبشر بالجنة درع حن يهودكم قبسنا وحوير والله وحان هو وأنقرنا إن أرنشي جيسد لكن وحان كلو هو حسن إنه مبشرين بالجنة ياهي سيد شباب أهل الجنة وياهي لكن مرقاتكم من نقون كرو عنق جاوا قانونك من نقون كرو عنق نينك عنقيس من نقون كرو مرقاتي أنت قرابة حاسك نينك عنق يابيس من نقون كرو مرقاتكم من نقون كرو طيب وحوير واهو با إنا صح رنشي جيسي كو عنق جاوا أهل الجنة ياهي وربين شيء جيني واهو با لكن وحوير دينتين الإسلام كما أقول عنق إنه أبيس مرقاتي ونقض سيدا درت عليهم وحبا ماشي كوما يالله أرد بح يهودي وبحث قاضي لي رجيت كاغما يهودي ماشي وحيله نقطة عجيبة إلى نقطة وحير معقول ما هو حال أمير المؤمنين كينا يعني جنا هالمحكمة سودة في لسانه تاسو حيله نقطة غريب تنلا بعضهم قصي يا بدنا وحواي إن هذا الكيس بين ست وأنا كيجا قادتي أذيقوا أكثر شيء يسون رن شيء جاي مركب وحير دينتي نواب الدين عدالة سأو ملينين علي وحو شيء صح واير جيت كان درعيان مجدها مالنتي سفين هبينك ودع الصبح يا ماشي كوك الله هي ألابدنا سو أروسي سان قضوير وصح أنا جمل ليه ماشي سان كسوقات أسيق أسكله درعي سواكني أنت كريم أن وحورة ديبسان دين تينا تواصل إسلاما
meeshuu ku soo islaamay cali bin abi aalib markuu wuxuu yidhi maadaama soo islaam dircigana hadiyan kuu sii qaado cadaaladdaasa marka loo baahan cadaaladda marka dadkay badbaadaysaa cadliga inaad samaysid mar kasto qofkuura walaalkaa iyo gaal hadday meel soo wada istaagaan cadaalad samey qofna ha dulminin caruurtaada cunugaaga iyo cunug kale soo dagaaleen isla markuu cunugaaga inaad ku boodi cunug kale hala dagaalamin maya hooyaa tahay aabba waaye waxaa laga cunugiisa waa kulaaluu leeyahay ilmaha markii lagaa soo dhawaado mis xukumi karta xataa laakiin cadaaladdu waxay leedahay stop cunugaaga waa qaldami karaa soo maana haa okay jooji marka cunugaaga warayso cunug kalena warayso adigoo si cadaalo u waraysanaysid waalidiinta qaarkood cunugooda wax la soo sameeyey haa cunugayga waxayba ku leedahay waa malag maba sameeyaba saas dulmi waayo cadaalad marka in la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay waxa koobaad dadka badbaadis marka waxaa waa alcadl fi rida walghadab tan labaadoo dadka badbaadis waxaa waaye alqasd fi lghina walfaqr waxyaala lagu badbaado waxaa waaye inaad dhexdhexaysatid markaa xoolo leedihid iyo markaa faqiir tahayba dhexdhexaad markaa faqiir tahay laa tajcal yadaka maqluulata ilaa cunuqika walaa tabsutha kula albast markaa faqiir tahan habdhihin waxba ma bixinay aniga markaa faqani tahan hadhihin waxba ma bixinay markaa faqiir tahan wax dhan wada bixina maya dhexdhexayso cadaalad waxay ku jirtaa inaad dhexdhexaysatid tartiib waxaaga dhexdhexayso wax qaarna wax bixi waxna reebo wax bixi waxna reebo laakiin haddaa $1 haysatid $10 haddaa sadaqaysatid dhib kuguma hayso $100 haddaa haysatid $1 haddaa sadaqaysatid dhib kuguma hayso 100,000 haddaa haysatid $1,000 ama 10,000 sadaqaysatid dhib badan ma aha markas waxaa loo baahan yahay laakiin sadaqada ha ka herin awooddaadana ha aga herin intaa awooddaada ku baxso tan koobaad dadka badbaadayso waxaa waa cadaalad inaad samaysid markaa xanaagsan tihiid iyo markaad degan tihiid qaraabadaada iyo cadowgaaga isku si inaa ula dhaqantid tan labaad waxaa waaye inaad dhexdhexaysatid xoolo markaa leedahay faqriga sadaqadaada inay kuu dhexdhexaad bakhiil aadan noqonin xoolahaagadan aadan daadinin ilaahi subxana wa tacala wuxuu uhi wakuluu washrabuu walaa tusrifuu cuna oo cabba hana xadgudbina ha xadgudbina waxaa waaye cuntada haddaad daadinina way noqonaysaa idinka naftirkiina ha isku dilina cuntado yani haddaad aragtid jooji meesha ku jooji marka israafka labadaba lama ogolo tan saddexaad oo dadka badbaadaysa waxaa waaye khashyat ullaahi fi siri waalcalan ilaahayna ka baqdid markaa kaligaa tahay iyo markaa babliga joogtid labada marbo isku si aaga baqdid ilaahay ka cabsan markaa kaligaa tahay oo joogtid iyo markaa bablig joogtid fiiri xadiidka wuxuu ku bilowday khashyat ullaahi fi sir oo ku bilowda qabla alcalan ilaahay ka baq sirta markaa sirta kaligaa tahay iyo markaa bannaanka joogtid ilaahayna ka xishooteedaa loo baahan yahay marka albaabka soo xiratid iyo markaa bannaanka joogtid isku si inaa ahaatid markaa masaajidka joogtid iyo markaa suuqa joogtid isku si inaa ahaatid ayaa loo baahan yahay markaa muslimiinta la joogtid iyo markaa gaalada la joogtid in isku si inaa u dhaqantidaa loo baahan yahay idan markas waxaa loo baahan yahay inaa ilaahay cabsidiisa ilaalisid ayaa loo baahan yahay ibni aadanata waa qaldami kartaa sax waa saa babliga ugu qaldami kartid ayaa keligaa markaa joogtana dembi ku samayn kartaa isla markii toobadkeen meesha ku istaagay ilaahay ka baq waa gashay ilaahay u toobadkeen isla markiiba khashyat ullaahi fi siri waalcalan inaa ilaahay ka baqday markaa keligaa tahay iyo markii lagula joogabo ayaa loo baahan yahay nebi maxamed sal ly slm dardaaranka asxaabta markuu u dardaarmi jiray wuxuu dhihi jiray ittaqi illah xayثuma kunt وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن إلهي كبق ميل والباجوتي سيدا درسي حالو باهي مركا إنان إله لأنه عبسد إلهي ذاتك عبسد إلهي إلهي محيه إلهيين إلهي سبحانه وتعالى وحيره الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ذاتك إلهي غيبك أغبع على مدى مسلمين توا إني غيبك الرميان ذاتك مسلمين وناقود الوية قانوان marka qofku waxa loo baahan yahay inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka baqo markuu kaligiisa iyo markuu dadka joogabo saddex dadka halaagto iyo saddexda dadka badbaadiso midba mid kale ku aadan tahay hal isugu aadinayna tan koobaad dadka halaagto nabi sallallahu alayhi wasallam sheegay waxa waaye bakhiilnimada shuxun mutaa maadaam ay ku halaagaysa maxaa ka badbaadinayo waxaa ka badbaadinaya alqasd fi الرضا القصد في الغنى والفقر ina dhaxdaxaysatid انت بخيل نقول لهاد لحظة إمام ترتيب وبحي حوله وبحي ترتيب وصدق يسو القصد أكو إيمان كاسا كاعلينس لحد هذا لو باهية هو المتبع قفك هوديس إنه راعو
wax allaala wuxuu rabo uu sameeyo waxaa ka hor istaaga khashyatullaahi fi sirri walcalan markii naftaada ku tira hawada ay ku tira san sameey inaad tiraahdo kale la innii akhaafu allaha rabba alcaalamiin ilaahan ka cabsana inaad tiraahdo markii naftaada hawo kasta rabta inay ku geliso may ilaahan ka baqa kaliyaha joogtaa waxay ku tira heestan dhageyso kaligaa waay inaad tiraahdo may ilaahan ka baqa kaligaa waa filinkan fiirso may ilaahan ka baqa idan hawadaada inaad raacdid waxaa kaa hor istaagaya waxaa waaye inaa ilaahay ka baqdid ilaahay markaas waa xasuusid naftaada hawadaada ma raacsiinaysid tan saddexaad oo dadka halaagta waxaa waaye qofka inuu kibir naftiisa ay la weynaato taasna waxaa kaa badbaadinaya waxaa waaye inaa cadaalad samaysid isla weynaanta waxaa kaa joojinaya cadaalad inaad samaysid anuu ree hebel adigoo ree hebel maxaa ii tari kartaa maxaa iga qaadi kartaa mii taqaanaa aniga aabihii wuxuu soo ahaan jiray saanuu soo ahaan jiray ayeydii meeshaasay ka dhalatay weel ibni aadanaa tahay kullinaa min aadam wa aadam min turaab kulligana aadana makiina aadamna turaab uu ka samaysan yahay maxaa loo baahan marka qofka inuu ilaaliyo cadaaladda ilaaliyo faqri bakhiynimada iska daayo kibirkaasna uu iska dhaafo ayaa loo baahan yahay idan saddexaas dadkii halaagtahay saddexdaasna dadkii badbaadisaa saddexa dadka halaagaysana allah naga badbaadiyo saddexa dadka badbaadinaysana allah noo fududeeyo waxaa loo baahan yahay laakiin inaad naftaada kala dagaalatid waxaa jirta marka saddex kale oo dembiga lagu dhaafo waa ibni aadanaa nahay waa ogyahay ilaahi subxaana watacaala ibni aadanaan oon qaldamayno nebi maxamed sal allahu alayh wasalam wuu ogyahayna ibni aadana dadka qaldamay wuxuu noo sheegay marka waxyaalo dembiga lagu dhaafo fudfudud ayuu noo sheegay ayib tan koobaad wuxuu yidhi oo dembiga lagu dhaafo waxaa waaye intidaaru salaati bacda asalaa salaad inaad salaad ku sugtid maqribaa soo gasho masaajidka ilaa cishahoo kale inaad iska joogtid culeys badan kugu mahayso waxaa laga yaaba hal saac 50 daqiiqo hal saac iyo 10 daqiiqo inay tahay laga yaaba ama winterka musamarka waa kala duwan yihiin inaa intaas iska joogtid dembigaa lagu dhaafaa salaada markaa ka baxdid adkaar la aqristaa jirto adkaartaas inaa aqris ajir badanaa ku helaysaa ayib rasuul sal alay slam wuxuu yidhi qofka markuu salaada ka baxay assalaamu calaykum markuu yidhaahdo hadduu meeshiisa fadhiisto uu 3 mar astaqfirullah yidhaahdo 33 subxaana allah uu dhaho 33 alxamdu lilah uu dhaho 33 allahu akbar uu dhaho meeqaa waa 99 boqol uu aga dhiga laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir hadduu aga dhigo asoo meeshiisa fadhiyaa waxa le dembiga waa lagu dhaafay wain kaanat mila zabad ilbaxr badda hirkeeda kale oo deerta ahaato meeqay kugu qaadeen 2 daqiiqo 3 daqiiqo 1 daqiiqay kugu qaadanaysaa adoo meeshaada fadhisid salaada kadib adkaar badanaa jirto adkaar aad u badan oo la aqristaa jirto adkaar waxaa jirto subaxii galabta la aqristo oo qofka loo baahan yahay inuu isku ilaaliyo qaar dembiga kaa ilaalinaayo dhibaatada kaa ilaalinayso qaar kuu xirsi xiraayo qaar lagugu dembi dhaafayo qaar aad jannada ku gelaysid adkaar badanaa jira adkaartaas inaad ku dadaashadaa loo baahan yahay dembiga lagu dhaafo marka waxaa loo baahan yahay marka salaada kadib qofka inuu ku dadaalo inuu meeshiisa fadhiyo ayaa loo baahan yahay waxaa dembigaa lagu dhaafaa tan labaadoo dembiga lagu dhaafo waxaa waaye isbaaq alwuduu cala almakaarih ama cala asuburaat qofka inuu weysida uu sugo waqtigii qaboobaha ama waqtigii marka hurdo ay ku hayso subax markaas uu kac dadka qaarkood markii weysaysan biyo sansaan wajiga leeyahay hurdada ma rabo inuu iska qaado wuxuu leeyahay si fiican weysayso hurdada iga tagayso wax yar oo soo indhaha isku hay wajiga dhaamayada indhaha isku hayso wajiga dhaqa gacmo ku leeyahay allah akbar tukana hore uu ka seexana waa qofkii soo kacaybo kaasoo kale marka weysadaas oo kale dembiga laguma dhaafo weysada dembiga lagu dhaafo waxaa weysada nebi maxamed sal alla alay slam uu weysaysan jiray oo kale weysaysto weysada kadib haddaad tiraahidni ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu ashhadu anna muxamadan cabduhu rasuuluh 8 albaab janna lagu fura ayib waxaa loo baahan yahay marka inaad ku dadaashid weysadan inaad ku dadaashid rasuul sal alay slam wuxuu yidhi qofka weysaysta waxaa la sii shahaado jaamacadda waxaa loo aado waxaa inay shahaado soo qaadatay rasuul sal alay slam wuxuu yidhi walaa yuxaafid calaa wuduu ilaa mu'min haddaa aragti qof weyse ilaalinaya waa qof mu'min ah waay